hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay muddo kooban hakad gelinayso qabashada codsiyada baasaboorkaasi sabab la xiriira faafitaanka cudurkaasi corona. war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska hay-addaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Britolo Salasa wixii ka dambeeya la joojinayo howlaha baasaboorkaasi. sidoo kale hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa tilmaamtay in go'aan qaadatay kadib markiisii kororka digniinaha la xiriira caabuqaasi corona. hay-adda ayaa ummadda Soomaaliyeed ku wargelinaysa waqtiga dib u bilaabista baasaboorkaasi. digniinaha caafimaad ee la xiriira caabuqaasi corona iyo saameynta isku socodka xafiisyada kala bixiyay adeegyada la xiriira bixinta baasaboorkaasi awgeed. hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxa ay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku wargelinaya in laga bilaabo maalinta Salaasada taariikhdu markay tahay 7 Abriil 2020 hakad la gelinayo qabashada codsiyada baasaboorka ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay hay-adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyadii gudaha iyo kuwa caalamiga ah guud ahaan dalka sabab la xiriira xakameynta cudurkaasi corona. ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay tiro gaaraysa 7 qof